شريعتنا عظيمة قيمها بدن مقاصد أرمها واوين أين أمرتي وحكم ذا إن ضدك قلوب توضى ليس سوتشيو أو مدى ليس عليسيو ومصلحة لغا الشقيق والله بدا اسكو دعدا أما كوحها اسكو دعدا لهشيسيو وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم إلى نبي قالوا صلوات ربي وسلامه عليه أوغارسيو روح أتاغن أمده هشيسين تيدا إيا إصلاحين تيدا إيا إسسو تشيدي تيدا إلى النبي أوغارسيو صلى الله عليه وسلم وحو لأجري هاي روح بينكي صلاة أتاغن ما ننتي ورنا صوما كاسو قالوا لم يديه النبي صلى الله عليه وسلم حيالي إصلاحه ودسمه ومدنمه ووناك وحب شرعه وحي آب فوقيسي عكس ذلك إن أمضى الدحر هذا لك للدلو هذا الله كالقاضه ورك الله كالقد بيه سي قلوبته إسوه عضو وأي صنع عضو ومركز فساد يماده وقودي أودي أمضي أضعيفته كدبنا أي نقدان لقمد أفجلس عدو جودة أسهلا إن أولقه مركز إسخلافان وكالتجان كدب سيدا الزرادة بشرعه وحي آدي فوقيسي ضدك كشقية هوشا إيضا والنبي قال وحكوت المامي صلوات ربي وسلامه عليه إفساد ذات البين هي الحالقة ضدك دحدوده ولا فساديو ولا كلا ديلو ولا يصنع السيو نبي وحور صلى الله عليه وسلم وامد حيرتوي وحوليه مرها يتمها حيرتا وسهلنا لا يتاسي لكن دينته حيرتا والنبي يقول صلوات ربي وسلامه عليه معنى هذا وحوي روحه كشقين يددك انه اسكو ديرو oo warka uu kala gudbinayo isnacsiinayay diintiisi waa u dhamaatay waa xiiranta shayga xiirayna waxa way waa shaqada uu hayo way ummadda diinta iyo dadka waxa ka shaqeeyaba way baabi'inaysaa way tiraysaa macnahaas waa xadiidka nabigu faa'iideynaya sallallahu alayhi wasallam waxa kamida marka waxyaalaha ugu khatarsan oo shariicadu meel cad ka istaagtay maalmahana aad u badan oo waliba aan ahayn keliyata caamada iyo dadweynaha kaliya ma حتى بين الخاصة حتى بين طلبة العلم مد ير يا مد وين يا أضي يا دمر يا رق يا أكل لهين الله فضل يستوى حكم ده إن ورك الله كلا قاضه سدت كلا سجودره هو أنت ينين كذا إن الله كلا قاضه سجوري بقدمه وأشق الشيطان تطبع كشقي وجريها الدمية ووحن شرني يا فريم أن شرين قدبية لودي صاحب على السكودري ورك الله كلا قادي علماء با ورك الله كلا قادي ولا السكودري طلبة العلم با الله كلا قادي ولا السكودري كوحيه با الله كلا قادي ولا السكودري قوائشي با الله كلا قادي ولا السكودري فنوع عبادات بابا جناعسي كدغتي oo aad u badan in badan oo muqaffaliin waa jiraan oo warku markuu soo gaaro aan warka shiili karin kala saari karin aan waxba hubsanin inta soo gaar markay soo gaadhaba sii wada oo iyagu muxuu ahay sii gudbiya nabigeenu wuxuu leeyahay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi dadka ka shaqeeya inay warka u kala qaadaan ummadda si ay u fasaadiyaan jannada ma galayaan buu nabigu yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi hadayna jannada galaynin xagee galaya qat'an naartay galaya waxa yeelay Allah tabaaraka wa ta'ala abaalka ugu dambeeya iyo aayaha iyo hoyga ugu dambeeya waa laba mid ama naar ama janno waa fariiqun fil jannati wa fariiqun fis sa'ir haduu xadiisku yiri janno gali maayo macnaheedu waxa weeye hoyga labaad buu gali oo naar ah aakhir markuu rabbigi u tago sidaas hadduu dhintana qabrigana sidoo kale waa lagu cadaabay oo nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi kama fi sahihayn wuxuu soo maray laba qabri markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam labadan qabri dadka ku jira waa lagu cadaabaya cadaab bay ku sugan yihiin waa la ciqaabaya
waxa lagu ciqaabayana wuxuu ahaa wax fudud inay ka tagaan inay iska daayaan way fududayd laakiin way fududaysteen wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam midkood dadku hadalka u kala qaadi jiro isku diri jiray namiim buu ah nammaan buu ah saas darteed buu qabriga ugu cadaabay ka labaadna kaadida ayuusan iska daahirin jirin iskama ilaalin jirin jidhkiisa iyo maryihiisa iyo nin kaadidu muxuu ahaayay aan iska ilaalinin buu ahaa kaana saasuu qabriga ugu cadaabay marka namiimada iyo warkoo dadka loo kala qaado si loo fasaadiyo oo la isugu diro waxay keenaysaa in qabrigana lagugu cadaabo aakhiro markaad rabbigaa u tagtana tabaaraka wa tacaala sidoo kale cadaabka loo geeyo arrin sahlan maaha waxaa kaloo nabigeenna ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayhi inuu yidhi ummadayda akhyaarteedu waa dadka markii la arko ilaahay la xusuusto dad waxaa jira markay kugu soo baxaan oo ishaadu qabato samtigiis waxa ka muuqda khushuucda alla ka cabsiga ilaahay buu ku xusuusinaya mujarrad aad aragto waxa ku qabanaysa ilaahay xusuustiisa iyo aakhira ku qabanaysa dadkaasi uu nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam waa ummadayda akhyaarteedii waa ummadayda ashraarteeda ugu shar badanna wuxuu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam waa dadka aad ugu socda warka gudbintiisa iyo dadka isku dirkiisa sheekadiyo warka u kala qaada oo dadka isjecel kala geeya dadka isjecel kala geeyo isku dira waa shaqadii sixirka waa shaqadii shaytaanka dadka isjecel in la isnacbaysiyo ka shaqeeyo dadka aan dambiga lahayna xumaan u raadiya oo mashaqo u raadiya ama mid isagu uu galay buu dusha ka saari ama waxyaalo kale intuu soo raadiyo been abuurto ama dad ka soo qaado dusha ka saari dadkaasi waa ummadda kuwa ugu shar badan buu nabigu yiri salawaatu rabbi wasalaamu calayhi shiraaru ummati ummadayda shiraartooda sharwadayaashooda waa kuwaasuu nabigu yiri salawaatu rabbi wasalaamu calayhi imisaa dhiig daatay war la gudbiyey darteed imisaa guryo ku burburay war la gudbiyey darteed imisaa ummadii isugu dhacday war la gudbiyey daraadeed waxaad ku talagalaysa kelimada kaa soo baxday qiyaasta fasaadka ka dhashay ayaa dambigeedii xisaabteeda leedahay ay kula fududahay adiga markaad leedahay markaad sheegayso laakiin waxa ka dhashay dhiigga ku daatay ummadda isku nacday burburka ka dhashay masaa'ibta ka dhalatay adiga xambaarsanaya maxaa yeelay musabbibat aadam labadii wiil ee uu dhalay isdilay sida quraanku sheegay kii gacanta lahaa ee dilka sameeyay ilaa qiyaamadu intay ka imaanayso ruux kasto xaq darro lagu dilo dambigiisa ka dilka sameeyay dambigiisa in la eg buu isaguna leeyahay maxaa yeelay kaana awwala man sanna alqatla dilka ibni aadamku inuu isdilo ninkii ugu horeeyay jideeyay buu jidka wixii mar oo dhan dunuubtooda dhan buu urursan ayaguna way qaadanayaan ninkii xumaan iyo fasaad ka shaqeeya fasaadkaas wixii ka sii dhasha isaga iskale saas daraadeed baa nabigeenu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi buu aad u adkayn oo arinta iyada ah bedelkii dadka aad warxun u kala qaadi lahayd isu soo jiid oo xataa waxaa la ogolaaday been isticmaal beentu waa xaraam waan dunuubta waaweyn bay ka mid laakiin markaad dadka doonayso inaad isu soo jiidood isjeclaysiiso oo nacaybka dhexdooda abbi'iso been inaad u kala gudbiso si aad u heshiisiiso waa la ogolaaday ilaa meesha la gaarsiiyo u fiirso sidaas daraadeed waxaa laga maarmaana in lagu baraarugo wararkan faraha badan ee sida fudud loo naqlinayo waxa nabigeena ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayhi inna ar-rajula la yatakallamu bil kalima ruux baa hal kelimada ku hadlay kelimada markuu ka hadlay ka soo baxaysa muusan u fiirsanin kama fiirsanin isma lahayn meesha ay gaadhay bay gaadhi doontaa halka kelimo ee uusan ka fiirsanin oo dhici karta inay kaftan uga soo baxday
ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala cadhadiisa ayuu ku helayaa ilaa qiyaami saaca. riwaayo kale naarta ayuu kelimadaas sababteed ku hoobanaya 70 sano ayuu naarta hoos ugu sii hoobanaya halkaa kelimo darteed. hal kelimo oon kula cuslayn oodan ka baaraan degin oo si fudud kaaga soo baxday oo dhici karta inaad ku kaftantay baa waxa dhici karaysa 70 sano inaad naarta jahannama hoos u gasho. carabkani ma sahlana. ninka isku sii daayayna oo faraha ka qaaday oo iska qabanin oo ilaalinina halaagiisu waa xatmi inuu halaag sameeyo adduunyo aakhiraba waa mas'ala aan shaki ku jirin. nabigeenu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi arinta iyada aad waadkii quraanka kariimkaana rabbi wuxuu ku sheegay dadka mudan in la iska fogeeyo warkoodana aan la qaadanin oo la ateecin. sifaadkooda waxa kamida dadka u socda oo ka shaqeeya namiimnimada oo dadka warka u kala qaada. alla wuxuu yidhi ha ateecina, ka warkiisa ha dhagaysanina, waxna ha ku dhisina, maxaa yeelay waa faasiq. waa faasiq. hadduu faasiq yahayna khabarul faasiqi waa marduud. mar hadduu faasiq yahay warkiisu waa marduud. sidee buu faasiq ku noqday? hadduu horay saalix ahaa warkan uu gudbiye fasaadka ka shaqaynayuu faasiq ku noqonaya. hadduu faasiq noqdayna rabbi wuxuu yidhi يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فاسق وركيسة أقبلنا ولا تطع هاطعي وركيسنا وحكول لسن عدنا هكول علوبين ومدها كرد قالمين وركيسة علي السيوح الشقواني فسادك كقبو مصيبة شرطة إيمانة مصائبة ووين بيكمتها إن سفضت ورك اللوغ بيو وبالتالي أمدي أيسكو قعضو انتصو مصائبة أي كدلت قلوبتي اسنعضو الله تبارك وتعالى وحؤاد وشعليها عمل كستو أمد قلوبتي هذا اسكو سور دويني قلوبتي هذا اسو كيني من نماذا هذا كشقيني لحد هذا إصلاحيني لأن أدون كذي آخرة هذا وتاسو كجرة وحن نعبيها ربي تبارك وتعالى عمل كستا أو أمد النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه كلا ديلية أو كلا فوقينية أو اسكدرية أو أود ديلية من نماذا هذا كلا تشبينية الله وأن نعبيها هي يدد كذا بربي واجد نعبيها تبارك وتعالى الله لقبق خاصة طلبة العلم علماء إيوه عالم النساء دمرك قارهان dadka wadiifadan iyo xirfadan aad uga shaqeeya waa qaybo dumarka kamid oo guriye farabadan ku dumiyay oo guriye farabadan iyo caruur farabadan ku baaba'een si fudud warka loo kala qaado oo ha loogu kala sheekeeyo kadibna wixii dhici lahaa baadhe ibliis ciidamadiisu shaqo ay soo qabtaan waxa ugu muhiimsan guriyaha inay dumiyaan sida nabi ka sugan salawaatu rabbi wa salaamu alayhi marka maalin kasto waagu bariyo ciidamadiisu kala diraya way shaqo tagaya xagee ka shaqeynaa ma beeray fashaan mise warshaday ka shaqeeya ma inaga shaqeeya ciidamadii markuu kala diro reportkii baa lagu soo celinayaa galabnimada nin walba wuxuu soo qabtay ninba reportkiisii uu keenay ayaa marka bilad lagu siinaya ninka biladda ugu fiican la siiyay waa ninka intuu tagay oo nin iyo xaaskiisii isku diray oo reerkii dumiyay oo kala diray ninkaasa biladda ugu qaalisan loo gelinaya laana shaqo muhiim uu soo qabtay shaqo aan nin kala qabanin ayuu soo qabtay ruuxa marka guryaha duminaya ummadda isku diraya rag iyo dumar midku noqdaba shaqada uu hayay waa shaqadii ibliis taajka lagu siiyay taajka lagu siiyay isagana taaj naareed baa loo xidhi doonaa oo rabbi tabaaraka wa tacaala qabri iyo qiyaamada cadaab buu agtiisa ka mudaya muslimiinta la isu soo jeedo yaan la isku dirin oo qulubtooda yaan laga shaqaynin warkana yaan loo kala gudbinin wixii fasaad iyo dhib keenaya sallu wa sallimu
على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. الله أكبر الله